ciyaartan waxaa ku jira ficilo iyo hadallo ku talax tag ah oo loogu talagalay inay dareenka qofka kiciyaan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada channelkeena Ihsaan. Maanta waxaan isdul taagaynaa ciyaarta musaaricada ee sida arxan darada ah la isku qaraacaa ma runbaa mise waa jilid. Inkastoo ay tahay ciyaarta adduunka loogu daawashada badan yahay, haddana muddo badan oo ay jirtay weli waxa uu muran ka taagan yahay dhab iyo dheel midka ay tahay falalka arxan darada ah ee laga arkaa. Si kastoo ay tahay sanadihii ugu dambeeyay waxaa soo ifbaxayay xaqiiqada dadka xiiseynaya ciyaartan ayna ku ogaanayaan in aanay dagaal run ah ahayn ee ay tahay bandhig wax kasta ay sii qorshaysan yihiin. Dr. Ashraf Xaafid oo ah tababare kooxda musaaricada ee dalka Masar ayaa mar uu dhowaan u waramayay shabakada wararka ee Al Jazeera waxa uu sheegay in dagaalka musaaricadu uu yahay kaliya jilis, isaga oo sheegay in la sii xulo hadba xubnaha ciyaarta gelaya kadibna si fiican loogu tababaro falalka jilista ah ee mid kasta qofka ka soo horjeeda ku sameynayo inta ay ku guda jiraan golaha dagaalka. Ayaa wili Dr. Ashraf waxaanu tusaale u soo qaatay in haddii aynu yarayno xawaaraha uu ku socdo muuqaalka ciyaartan laga duubay, aynu si fudud u arki karno in nabarka qofka lagu dhufanayaa aanu ahayn run, sida oo kalena jawaabta uu qofku ka bixinayo intii aanu feerku ku dhicin. Waxa uu intaa ku sii daray haddii ay run tahay in nabaradaasi qofka ku dhacayaan, waxa ay marar badan ku keeni lahayd gariir maskax ah oo qofka ku dhaca. Waxaa arrintaas si fiican u fahmayana xeeldheerayaasha ciyaarta feerka, ayaa uu yidhi doctorku. Tababare Ashraf oo ah macallinkii Karam Jabir oo ku guuleystay biladii feerka ee ciyaarihii Olombikada sanadkii 2004 oo ka dhacay dalka Giriga, waxa uu sheegay in ixtiraam la'aanta ay ciyaartooygan u muujinayaan garsooraha iyo caadada ay isku abuurayaan, caadifada ay muujinayaan marka jirkooga la lagdo ee loo tirinayo saddexda, in waxaas oo dhani ay ka mid yihiin arrimo ku talagal ah oo kor loogu qaadayo xiisaha uu daawaduhu u qabo ciyaarta iyo in uu rumaysto waxa dhacaya. Waxa uu intaa ku sii daray doctorku, waxa uu sheegay in muuqaalada ka mid ah ciyaartan ee inta badan fashilya been abuurkeeda soonana noqda ay ka mid yihiin marka ciyaaryahanku uu dhulka ku dhaco ee kii la dagaalamayeyna uu la dhaco laad. Haddii uu mid keligii si run ah ugu dhici lahaa, uu caqligu garanayo in feedhaha ama raqabadu ay jabi lahayd. Ciyaartan waxaa ku jira ficilo iyo hadallo ku talagal ah oo loogu talagalay inay dareenka qofka kiciyaan. Waxaa ka mid ah marka laba ciyaaryahan saaxiibadu ay soo galaan golaha iyagoo ereyo daandaasi ah iyo aflagaado ah isweydaasanayaan ama u kala hiilinaya saaxiibkood. Ciyaartan ah tan labaad ee ugu caansan adduunka marka laga yimaado kubadda cagta. Dhaqaalaha ugu badan waxay ka heshaa tigidhada lagu galo ee dhaqaalaha sare lagu iibiyo iyo iibka TV-yada laga iibiyo iyo sidoo kale xayeysiisyada. Marka laga yimaado lacagta faraha badan ee ay qaataan ciyaartooyadani, waxa uu dheer lacag dheeraad ah oo mararka qaar lagu kudhaysto cid ama dal gaar ah. Waxa ugu dambeeyay ciyaartii ka dhacday Sacuudiga, waxaa lagu karaystay ciyaartooyinka qaarkood 15 milyan oo dollar. Dr. Xabiib mar uu la hadlayay Al Jazeera waxa uu sheegay 100% in ciyaartani tahay been abuur. Waxa uu sheegay inay fiican tahay in lagu yeero masraxiyad. Waxa uu ku daray in la sii diyaarinayo qofka guuleysanaya marka horeba iyo feerka siduu ugu dhufanayo qofka kalena siduu iskaga difaacayaba. Xudaydi waxa uu sheegay Al Jazeera
in ciyaartooyga lagu soo doorto kolba siduu u kala wan yahay jirkoodu, taas oo ah daawadaha in lagu qanciyo arxandarada iyo ficilada xooga badan ee uu ciyaaryahanku ku kacayo. Waxa uu sheegay Xudaydi ciyaaryahanka isagoo lagu dhiftay nabaro waaweyn ayaanu haddana ka kacayn ama aanu ka tageen goobta ciyaarta. Waxaa laga yaabaa dad badan inay isweydiinayaan sababta ciyaaryahanka ka keenta dhiiga, ama ay dhacdo in qaarkood ay ku dhex dhintaan golaha ciyaarta. Caadi ahaan in ciyaaryahanka aanu nabar ku dhacayn doodu maaha, oo marar badan waxaa dhacda derbad qaldan ama uu isagu farsamadii difaaca qalday in ay ku dhacdo, taasna ay ku keento nabar. Waxaase jira darar dhiig u eg oo uu garsoore kasta oo ciyaarta dhexdhexaadinaya uu sito, taas oo si ku talagal ah oo laisla sii og yahay oo hab xeelaysan oo qarsoodi ah ugu dhiibo ciyaaryahanka jilaya inuu nabarku ku dhacay. Kadibna uu ciyaaryahanka si farsamadeedu sareyso iskugu daadinayo walaxdaas dhiiga u eg. Dhinaca dhimashadu waa arrin iska caadi ah oo waxay dhacdaa ciyaar iyo ciyaar la-aanba inuu qofku si kadis ah u dhinto. Daawadayaashu waxay jecel yihiin midka guuleysanaya, laakiin xeer ciyaareedka, mulkiilayaasha iyo tababarayaasha ciyaarta musaaricadu waxay jecel yihiin ciyaaryahanka laga adkaado ee sameeya farsamada indhasarcaadka ee dadka moodsiinaya in si xun loo qaraacay.